السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وناكسان نبات داوديال هالكان وودجير نيوز قodobada ugu waaweyn ee aad warka wadajir aad ku daawad doontaan waxa kamid ah wargeys caalami ah oo laga leeyahay dalka Mareykanka oo soo bandhigay nin 4 sano ka hor isku dayay inuu toogto madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wargeysku waxa uu sidoo kale u shaaciyay basaaskan iyo dawladda Soomaaliyeed haddaba warbixin dhameystiran ayaan idin soo gudbin doonaa waxa kale oo aad daawad doontaan 171 dhalinyaro ah oo ka shaqeynaysay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya ayaa hal maalin gudaheed waxa laga ceeriyay shaqadii hayeen haddaba maxaa ka jira in dhalinyaradan qaab qabiil ahaan shaqada looga eriyay xog faahfaahsan ayaan soo gudbin doonaa waxa kale oo aad warka wadajir aad ku daawad doontaan madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud oo amray in la xayiro lacag ku jirta akoon ku yaal magaalada Muqdisho shakiga dawladda ee la xiriirta in lacagtaas uu leeyahay qof shabaab ka tirsan ayaa la ogaaday bangiga ee lacagtaas ay taalo iyo sida loo ogaaday inuu leeyahay qof shabaab ah ayaan soo gudbin doonaa waxa kale oo aad maqli doontaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 2023 bilowgeeda lagu doonsinayo abaalmarinta biladda nabadda adduunka wuxuu kaalinta koowaad u galay qofka ugu horeeya ee Soomaali ah ee abaalmarintaas ku guuleystay madaxweyne Farmaajo wuxuu tartankan kala dhaxeeyay madax badan oo caalamka hogaamisa sida ayuu guush u raacday Farmaajo warbixin dhameystiran iyo waxa uu horseeday Farmaajo inuu qaato biladda nabadgelyada adduunka ayaa daawad doontaan u diyaar garooba daawadayaal qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan balse marka hore daawade inaga qayb qaata faafinta warkan idinku gaarsiinaya saaxiibadeen kuna share gareynaya guruubyada waadna ku maasantihiin hadii aad aragtidina ugu reebteen qaybta commentiga ee hoose waa hagaag isku soo laabasho wanaagsan oo xiiso leh ayna ku bilownay madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qaadanaya abaalmarinta biladda nabadda adduunka 2023 bisha labaad waxa magaalada Netherland ee caasimadda dalka Holland lagu qabanaya abaalmarinta biladda nabadda adduunyada waxaana madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo soo sheegay inuu yahay shakhsiga asaga ku guuleystay abaalmarinta biladda nabadda adduunyada wadamada bixiya abaalmarinta biladda nabadda adduunyada oo ay hormuud ka tahay dawladda Holland ayaa dhammaan dawladaha hadiyada bixinaya waxay isku raaceen in madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uusan jirin qof asaga ka mudan inuu qaato abaalmarinta biladda nabadda adduunyada waxaana loo xushay inuu yahay madaxda Afrika ninka ugu horeeya ee nabadgelyada ka shaqeeyay madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa abaalmarintan ku muteystay inuu heshiis nabadeed uu kala dhaxdhigay dad isku deegaan ah oo aan si kala joogsi lahayn isku leenayay waxaana laga xusi karaa degmada Marka oo la xasuusto xilligii la doortay madaxweyne Farmaajo inay had meel inta badan ay isku haystaan qabaa'ilada degmada Marka waxaana kadib markuu xilka ku guuleystay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo bilooyin kadib oo safar ku tagay degmada Marka wuxuuna isku wacay dhammaan qabaa'ilada is haystay wuxuuna dhaxdhigay nabad iyo inay saamaxaan waxaana heshiiskii oo kala dhaxdhigay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qabaa'ilada ku dagaalamayay degmada Marka kadib heshiiskii oo asaga dhaxdhigay in waxay markaa ka dambeeyay aysan qoryaha isku soo qaadan qabaa'iladii 10 sano dhiiga ku daadinayay degmada Marka waa hagaag wararkeena kalena waxa kamid ah wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi ayaa albaabka koowaad ee laga soo galo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya waxa uu darbiyada ku dhajiyay warqad asaga xafiiskiisa ka soo baxday kaas oo ku cadeynayo in shaqaalaha angunada qaadan ee ka tirsan xafiiskiisa laga bilaabo maanta aysan soo xaadiri karin
wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya ayna ka mid ahayn shaqaalaha wasaaradda wuxuuna hoos warqadda oo shaqaalaha ku ceerinayo ku yiri wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi inuu go'aankan asagoo qaatay dhalinyarada shaqada laga joojiyay ayaa ah kuwa dalka wax ku bartay waxayna ahaayeen kuwa sugaya in mar dawladda ay mushahar u qorto waxaana wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya oo qalbi jab ku riday dhalinyaro badan oo han lahaay warqadda ka soo baxday xafiiska wasiirka ayaa waxay ku qorneed ujeedo kala dirid shaqaalaha ku meel gaarka ah wax go'aan qaadan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxay ku wargelinaysaa dhammaan shaqaalaha ku meel gaarka ah wax go'aan qaadan in laga bilaabo maanta la kala diray oo aysan soo xaadiri karin wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha kana tirsaneen shaqaalaha wasaaradda wasiirkan ayaa sidoo kale faray ciidamada ammaanka ee wasaaradda inaysan ogolaan in shaqaalaha la fasaxay aan gunnada qaadan ay gudaha u soo galaan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya dhalinyaradan oo shaqada ka joojiyay Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi ayaa inoo sheegay inay ku jiraan dhalinyaro 7 sano ka shaqeynay wasaaradda kuwaas oo sugayay inay dawladda ay mushahar u qorto balse aysan meeleysanin in laga eeriyo shaqada qaranka oo ay si bilaash ugu shaqeynayeen dawladnimada Soomaaliyeed waxaa daawadayaal ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo amray in la xayiro lacag ay leedahay kooxda Al-Shabaab oo ka yaala gudaha Muqdisho sheergareeg warbixintan oo gaarsii saaxiibada warbixinteena maanta ee calandoon waxaan kaga hadlaynaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xog badan ka helay lacag ay leeyihiin kooxda Al-Shabaab oo ka yaala gudaha Muqdisho wuxuuna agaasimaha Nisa Mahad Maxamed Salaad ku amray inuu lacagtaas xayiro sidoo kalena baaritaan dhameystiran oo ku sameeyo madaxweynaha qaranka iyo qaybaha kala duwan ee hoggaanada dalka oo wada abaabulo kala duwan oo lagu dagaalamayo kooxda Al-Shabaab ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa xog badan looga keenay in lacag gaaraysa 13 milyan oo ay leeyihiin rag ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee u yaalaan bangiyada magaalada Muqdisho lacagtaas ayaa sida ay sirdoonno soo tabiyeen waxa iska leh xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaas oo doonayay in qorshayaal ay ku jiraan dhismayaal ay ka hirgeliyaan gudaha magaalada Muqdisho waxaana xalay toosaqdii dhexe baaritaano ay wadeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugnaa wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya waxa uu ka dalbaday inay caawa wada joogaan si ay baaritaano dhameystiran ugu sameeyaan akoonada ku yaal magaalada Muqdisho madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo baaritaanka qayb ka ahay ayaa waxay indhihiisa qabteen lacag 13 milyan oo shakhsiyaadka iska leh aysan u soo dhameystiran magacyadooda oo saddexan waxaana taasi tuhun ay ku abuurtay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuuna ka dalbaday shaqaalaha wasaaradda maaliyadda oo habeennimadii xalay baaritaano ay wadeen in lacagtan tixraac lagu sameeyo si loo ogaado shakhsiyaadka iska leh waxaana baaritaanka kadib loo ogaaday in lacagtan ay leeyihiin xubno sarsare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab guud ahaan halkaas ayuu ku eegyahay daawadayaal warka Wadajir News waxay aragtiyad heesid qaybta kommentiga ayaad nagu reebi kartaa mahadsanidin